Shaybis shaybyada sida shayb loogu soo daro MS Word. In Microsoft Word, markii la joogo Microsoft Word, you can add waxaad ku soo dari kartaa a variety of shaybis shayb kala duwan. Shayb kala duwan. Inta your documentigaaga, including kuwaas oo ay ka mid yihiin arrows, falaaro, calotis, kaatiyo waa nooc ka mid ah shaybyada. Squares, squarada sida rectangle-da ama fargeesyada. Stars, xidigaha. And flowchart shaybis iyo shaybyada jaantuska. To insert si loo soo geliyo shaybis shaybabka si loo soo geliyo. In the insert tab waxaad tagaysaa carabka soo gelinta, click waxaad gujinaysaa ama aad riixaysaa the shape command amarka shaybabka. A drop down menu yar of shaybis oo shaybab ah ayaa will appear kuu soo muuqanaya. Select waxaad ka dooranaysaa the desired shape aad go'aansatay ama shape aad rabtay aad ka dooranaysaa. Click waxaad gujinaysaa and drag aadna jiidaysaa in the desired location booska ama locationka aad u go'aamisay inaad shapekaas aad soo geliso. To add si aad ugu soo darto the shapeka to your documentigaaga. Tables waa table sida table loogu soo daro. Tableku muxuu yahay? Is made up of wuxuu ka samaysan yahay rows and columns. Wuxuu ka samaysan yahay row iyo column ayuu ka samaysan yahay kaasoo leh cells leh godad. That can be filled cell-kaasoo lagu buuxin karo with text qoraal and graphics iyo sawirro lagu buuxin karaa. They are used to set and present. Waxaa loo isticmaalaa in lagu soo bandhigo information, warbixin ama macluumaad in an organized layoutyo midaysan oo organized ah. Si loo soo geliyo table si loo soo geliyo. In the insert tab carabka soo gelinta, click guji the table command amarka table guji oo practically samayn doona. Select waxaad dooranaysaa the number of columns tirada columnyo and rows iyo row you want aad rabto from the grid ayaad ka soo dooranaysaa. Inta column numbers of columns numbers of rows ayaad dooranaysaa. Okay, qodobka saddexaad click guji the grid waxaad gujinaysaa grid to confirm si aad u xaqiijiso your selection doorashadaada and the table will appear. Sidoo kale waxaa kuu soo muuqan doono tableka ayaa soo muuqan doona. To insert text si aad u soo geliso qoraal, place waxaad dhigtaa the insertion point barta gelinta any cell waliba salka aad rabto in wax soo dhex geliso. Sample halkan aan isku dayana inaan maaragtay aan ku sawirno. Okay, maaragtay tablekan oo kale ayaan sameynay. Wuxuu ka kooban yahay rows, rows and columns uu ka kooban yahay. Kuwan waxaa la yiraahdaa cells waa godadkan. Tusaale markaan u baahdo inaan qoraal ama maaragtay aan geliyo kale haddii aan rabo qoraalkayga inaan godkan ka bilaabo godkan ayaan qoraalkayga dhex gelinaa intaan typing ka bilaabaya. Waa cells way marka ani cellka aan rabo inaan wax ku qoro ayaan gelinaya kadibna bigan waxaan bilaaya typing qoraalkayga ayaan bilaabaya. To delete sida loo masaxo row or column. Row ama column sida loo masaxo of tableka looga masaxo ama looga tiro ama looga deleedo. Right click waxaad gujinaysaa qaybta midig in the row or column. Rowga ama columnka you want aad rabto to delete inaad masaxdo ama inaad tirto. Then kadibna select waxaad dooranaysaa delete cell. Delete cellkan ayaad dooranaysaa from the menu waxaadna ka dooranaysaa menu kuu soo muuqan doona. A dialog box will appear waxaa kuu soo muuqan doona box ayaa kuu soo muuqan doona. Just waxaad ka dooranaysaa delete masax entire row haddii aad rabto rowgana rowgaad dooranaysaa or ama columns ama column ayaad dooranaysaa. Then kadibna click waxaad leedahay okay ayaad leedahay waa gujinaysaa. Okay, the row or column rowga ama columnka will be deleted waa la masixi doonaa gebi ahaanba waa la tiri doonaa.